jooga laakiin abaal aan la soo koobi karin baan maarag cidda kaliya ee dadka deegaanka abaal u sheegan karto waa ciidanka dhalinyarada ah ee sida mutadawacnimada qoraxda habeen iyo maalin u taagan laakiin nimanka siyaasiyiinta oo madaxweynaha ugu horeeyo waxaan dhihi karaa dalka iyo dadka way ka adeegtaan ee uma adeegaan waxa kaliya ummadda u adeega waa ciidanka yar ee mataqaanaa dhalinyarada 4 bilood laga yaabo $100 inuu qaato oo micnaheedu ah bishii $25 iyagu horta eed ma laha oo de baarlamaan la empower gareeyay ma ahayn marka horeba institution adag oo sidii la rabay u shaqeynaa ma ahayn dadku waxa la iska geeyay ama xubnaha waxay ma aragtay waa la iska magacaabay nooc min magacaabid bay ku yimaadeen iyo qabyaalad iyo awood qaybsigii 4.5 iyo wax lamid ah institution adag oo marka ay ka shaqeeyaan meeshii kama dhisno awoodii deegaanka waxay gacanta ugu jirtaa Axmed fiiri tusaale hal maalin baa nin ka hadlay baarlamaanka waa hal maalin buu nin Axmed Taajir